آمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدن قدومي كحيانا شرفت له سنة الرضا شرفت بدن والإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وراقدها هذا الذي قيبين نقول كوحواي مدنا وكي سنة كان كلو الله الصعدة داس ويديسان 1 أكتوبر، وانا وعيقلين تا وقتك أم باللابي عذر كان عقار شوقون سوح القامي كليجي وكون سقال بقول سيديت تني تدوبدي إن كستو مركز يعني حبنا صباح يعني مركز وكون سقال بقول سيديت تني تدوبدي يعني وجوهري وعيقلين وجوهري أسميه وما تنقل كحديقة أكتوبر كل فاقا مدة كلنا ومدة هذا يعني كرنت هذا الصعدة وهذا أنقسمنا هذا كسو كوبو مدنيال مدن قدومي مدنيال يعني سنة كاسديد لما تنكع بيشان جولاي وحال حصا وحسك عذرك عقار شوقة أدون كوردان لغا حصو سيل بلشادة عالم كاللوت سيو خطرتا عذر كان إيديباتة وقول لي هي بلشادة أدون كعالم كا قارهان بلشادة الصوماليات أيانو سمعنا نقر وعيقين تنقاركا محايل وعذر دلاء ولي بس آموسن كدلا هو سايلنت كيلر ساس أوجد أنا وتلا قلني ما ركتي إنا برشة يعني كوع يقولينه وانكسر سميني جواب بدن معلمان أسبوع عنودن انكسر من جواب بدن يوم هاي تو سوشيال ميديا هي ميديا هذا أقل كشرفت له سنة حقوق لنا ونقضه وحق بقول لي هاي مركا وعذر هلسة وعذر يعني كينه dhibaato keena beerka waxaana keena virusyo kala duwan. Virusyadaas waxay sababaan burburi dhaawac ku dhaco beerka, waxayna kala yihiin virusyo kala duwan oo la yiraahdo viruska eega biiga siiga diiga iiga. waxa ugu sii dara saddexda ugu khatarsan oo ah eega biiga siiga waliba biiga iyo siiga waa kuwa ugu sii khatarsan. يعني haddaan soo koobo inaan soo koobo waaye eega ومتك يعني سهلا وكوجد بقى مهاي فيروس إيجا وحاسد 1.4 بليون الدنيا، لكن إسلام مركبة نسيب هناك ولا جبك سلا أو ميش كرونيك فوم أما ميش راجس ميش وحب ذا ميلها يعني نذافته وحنتها ميلها يعني رنتي سكول درفول ككراودي معاي تسير قحوتية ذا إيو بركة عياش ميلها نذافته هوسيسو wuxuu ku gudbaa saxarada oo gacmaha iyo raashinka iyo biyo lacabo iyo miro la cuno wasaqaysan oo raaca caloosha taga halkaas oo marka oo nacaan oo beerka ugu gudbaa hadhowna saxarada soo raaca. waqtiga uu galay waqtigu soo baxaya calaamooyinkiisa waxay qaadataa liira 45 maalmood. kan yani kuwa ugu daran oo khatarta wacyigelinta aan rabno maanta ay ku wajahan tahay ama markasta ay ku wajahan tahay waa nooca biiga iyo siiga. biiga iyo siiga waa kuwa ku gudba dhiiga iyo dhacaanka qofka jiran markuu gaaro qofka fiiw si kasta ku soo gaaro. laba qaybood loo kala qaybiyaa. waxaa loo kala qaybiyaa vertical transmissionka oo ah hooyada uurka leh ee qabta cudurka markay u gudbinayso cunuga xilliga u gudbinayso ah perinatal transmissionka waliba muddada uu dhalanaya oo halka ugu badan 90% chronic infectionka laga soo qaado halkaasna uu la koro cunugii ilaa uu ka gaaro 40 sano 30 sano 40 sano la soo silent la arkay hadhow caloosho biyo galeen chronic infection waa caloosho biyo galeen liver cirrhosis gaaray ama liver cancer taas waa hooyada uurka leh oo waliba aan laga feejignayn. tan kale waa mid horizontal transmission kala yiraahdo oo ku gudba ma aragtay markii qof cirbad lagu dhuftay ama cirbad qof qaba lagu duray ama qalab qaliin oo qof qaba lagu yani loo isticmaalay ama muxuu ahay to garxiirka ama yani waxyaabaha kale oo yani loo isticmaalay in hadana loo isticmaalo qofkii kale. maanta waxa kale oo muhiim ah nooca biiga in uu ku gudbo galmada sida HIV AIDS ko kale. Soomaalidana aweer uma ahtaa
marka taas loo baahan waliba hadhow ka doono wacyigelinta markii waxaan sheegayaa ka hortagga waxaa loo baahan lamaanaha isguursanaya in ay ka feejignaadana loo baahan tan kale muhiimka maanta Soomaaliya ku badan loo baahan yahay waliba caado dhaqameedka waxa weeye waa waxyaabahan dalqagooyinta qungooyinta sarsarmada toobinka gudniinka fircooniga gudniinka wadarta wiilasha umulsa dhaqameedka waxaas oo dhan loo isticmaalayo qalab aan jeermi dilneen oo aad ogtiin Soomaalida qumba ku dhacay marka loo aadaya hebel ama gowraci ama qofka loo tagay marka hal qof oo qabadu soo maro inta kala dhan gudmaa habar waxa jirta umulsa dhaqameed hal midi haysata mididaas sterilization iska dhaaf oo la jeermi dilay hatta lama dhaqo waxay sameynaysaa waxay leedahay dambiye taabsiyo waa mirinaysaa waxay isticmaalaysaa maradii maray ku tirtiraysaa kaliya waa garan kartaan viruska sida u gudbaayo waxaan rabay inaan sheego viruska nooca B-ga waa nooc adkaysi badan kulka wuxuu u adkaysanaa 100 grade centigrade haddii lagu haayo 20 daqiiqo ayuu ku dhiban karaa marka waa garan kartaan waxaa kaloo jirta nooca B-ga xawligiisa fiditaanka inuu 100 jeer ka badan yahay kan HIV AIDS waxaa kaloo jirto inuu dibadda ku noolaan karo 7 maalmood haddii qalab la isticmaalay ama la isticmaalay sakiin ama la isticmaalay cirbad banaanka lagu tuuro 7 maalmood ayuu jiri karayaa marka waa garan kartaan transmissionkiisa cudurkan sida uu khatar u yahay waxaa la helay 1967 waxaa helay Professor Bloomberg talaalkiisii 2 sano kadib uu helay laakiin waxaa la dabaqay 82 kan C-ga waxaa la helay 1989 waqtigaas kor waxaa la dhihi jiray non A non B waa garan kartaa ama post transfusional hepatitis la yiraahdo waxa ahaan jiray wax dadka dhiigga lagu shubo dhan ayuu ka soo raaci jiray ilaa lama ogeyn marka waxaan aan rabaa inay leeyihiin chronic infection B-ga iyo C-ga in B-ga uu talaal leeyahay laakiin C-ga talaal male calaamooyinka waan soo koobaynaa calaamooyinka saddex qaybood loo kala baxshaa waxaa loo kala saaraa pre-ecteric phase oo wajiga koowaad ee cagaarka indhaha intuusan soo ifbixin ka horeeya ecteric phase oo waqtiga indhaha ay cagaartaan iyo convalescence phase ama recovery phase oo waqtiga qofku uu ka bogsado marka pre-ecteric phase calaamooyinka qofku isku arkaya maxay tahay wuxuu isku arkayaa qudhun xanuun lablabo matag tabardaro cuntada qaadan kari waayo iyo wixii la midka waxay jirayaan 3 ilaa 4 usbuuc kadib wuxuu u gudbayaa ecteric phase kama xilligii oo indhaha cagaarnaayeen waa midda Soomaalida ay ku baraarugto marka kaas wuxuu jiri doonaa waxaa sii kordhaya calaamooyinkii bog xanuunkii dhinaca beerka xanuun yar uu yeesho intii hore weli sii jirta kadib 4-5 usbuuc kadib wuxuu u gudbayaa recovery phase ama convalescence phase oo qofkii uu ku roonaanayo wixii dhan waa ka baabaayaan cagaarkii indhaha waa ka roonaanaya kaadidii waa gaduudatay marka hore waa cadaanaysaa labalabadii cuntada matagii wixii dhan waa ka roonaanaya halkaas waa halka Soomaalida marka khaladka weyn ka soo gaaro oo arinta caado dhaqameedka la yiraahdo dabka oo su'aasha dabka iyo cudurkan maxaa ka dhaxeeya Soomaalida isticmaalaan waxa waaye wax ka dhaxeeya male dabka balse wuxuu sii xumeeyaa cawaaqibta dambe ee cudurkan waxayna ku qaldamayaan inta hadda aan ka sheekeynayna calaamooyinka oo xilliga oo kala guurka oo cagaarkii indhaha uu baaba'ayo 4-5 usbuuc markii waxay ku baraarugayaan indhaha markuu cagaarto ayay arkayaan inuu cudurka cagaarshow yahay markaasaa dabkii lagu dhufanayo waxaa isku soo beegmaya dhammaadkii caadiga ahaa calaamooyinkii oo ecteric phase-kii oo u gudbayo convalescence phase-kii iyo waxaa isku soo gudbaya dhammaadkii caadiga iyo dabkii lagu qabtay saasay ugu qaateen Soomaalida balse wuxuu sii xumeynayaa cudurkii uu sii xumeynayaa sababtoo replicationkii viral replicationkii waa sii socdaa burburkii haddaanan nasasho dheer iyo uusan qaadan daawo halkaasna waxaa la arkayaa 6 bilood kadib
in qofkii nolol maalmeedkiisii orodkiisii watay waxaa la arkaya 6 bilood kadib asigoo markaa haddana marka lindhii cagaarteen cudur cusub ma aha waa kiyo chronic infection noqday halkaasna wadadii ka qabsaday oo tagaya liver cirrhosis yani caloosha biyo galaan beerku adkaada kadibna markaa uu muxuu ahay liverkaas isku gudbiyo cawaaqibta cudurkan maxay tahay waxaa loo kala qaybiyaa biiga iyo siiga waliba waxaa la yiraahdaa boqolkiiba 90 biiga waa laga reystaa acute phase-kiisa boqolkiiba 10 ayaa chronic ama raagis yeelato chronic infection hadda siiga waa ka dib badan yahay boqolkiiba 75 ayaa waxaa noqoto chronic infection halkaasoo marka boqolkiiba 25 wuxuu aadaa liver cirrhosis boqolkiiba 20 wuxuu tagaa kansarka waa soo gaabinaa bes waa cudurkan guud ahaan 300 isku jirkooda labadan waxaa xambaarsan 350 milyan waa biiga iyo siiga 350 milyan sanadkii waxaa u dhimato 1 milyan iyo 1.1 milyan u dhimata waxaa yani runtii muhiim ah maalintii inuu dhintaan 3,000 يعني صدق كي البرقسين إنه هالقف ودنتو كيساسك عصب مالنتي إني سيدات كويين أو كل دواد إيجاريس مركز عابق إنه مالنتي قاضي يعني شقف وين كبدن مركز خطرته ليه وأنت وحان ربع أنه سوق جبينا أيوه كورتجا عذر كان وحاواي أنت أنصوش شجنة وكوجد بايي ولا جهرتوه أو وحي عربده محاهيتو هبرتي قبتي transmission kii oo dhan qaabkan soo sheegnay oo loogu hortaga laakiin arinta kale oo muhiimka ah ee ka hortaga waa talaalka cudurkan oo maanta muhiimad weyn u leh oo gaar ahaan waliba caruurta 5 sano da'da ka horeysa waxaa hadda la amray cunuga markuu dhasho habarta qabta 24 saacadood gudood in la talaalo kadibna la raaciyo talaalkii routiinka ahaa oo yani la siin jiray caruurta oo 6 cudur dilaaga ah dadka waaweyn waa marka hore بالكذب لعب لود كذب وحان ربا أقل كشرفته لي حلبانada إن قفكي هري ودعي وحو سميستي دفاع أوليه لكن قفكي وسن كدعين نيجاتيف وحان كعد سنايا تلالكي مانتو افيلبل ملك تلقيلي كرا إن هاد استلاشان تنكالي مانتو وحالوس قدر تلالكا يعني محلي هذا MCH هذا بنتا فالنتا اللي هذا وكي عقرشوا وكجرا المهنا اللي جبرا رجع MCH دين لقيه وقدام بين وحن ربعنا وقوم هاد عليو محايتو وقت اللي سيء برشة وحقوق باقيا إن مركز كوار كان دكتور لحريران كو إن عنتذا غار كنت سكجرا عنتذا معاه وبتسنكر قفكم مركز كوار كعذر كاس هدوسن سكر قبين cuntada borotiinka si qiyaas u qaadan kara laakiin waxa ka reeban waxyaabaha subag gal yiraahdo iyo subag idaad iyo subag xoolaad oo waxyaabaha beerka si burburiya Soomaalidan ay aad yani u aaminsan tahay waxaan u rajaynayaa bulshadeena caafimaad qaba ugu dambeyntii waxaan ku soo khatimayaa ka hortaga inuu ka wanaagsan yahay daaweynta billahi tawfiiq wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh